dadka loo hal su'aal oo ah haddii xildhibaan lagu doorto kibaad codkaaga siin lahayd Saciid Cabdullaahi Deni iyo Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo labadaba musharax madaxweyne oo federaal ah. Assalaamu calaykum. Waalaikum salaam walaalahay. Soo dhawaad magacaaga. Abo dhaw magacaygu waa Suur Congress. Suur waxa ku weydiinayaa barnaamij xog ururin aan wadnay lacala ma la socoto hor doorashooyinka Soomaaliya ka socda. Waxaan ku weydiinayaa adiga oo xildhibaan oo codkaaga oo xildhibaan caadi ah codkaaga dhiiban kara wareegga guddiga waxa isku soo haray Farmaajo iyo Saciid Cabdullaahi Deni kibaad codkaaga siin lahayd. war waxaas ma wax la isbarbar dhigaa war Farmaajo siin lahaynio Farmaajo fi qulubina wa arwaaxina ma jirtaa sabab Farmaajo ku dooratay Saciid Cabdullaahi Deni uga tagtay Farmaajo waxa waaye nin wax qabad la waaye oo waxyaabo fara badan ka bedelay Soomaaliya yalaas wax ka bedelay nolosha waxyaabo fara badan waaye xagga ma lagu soo koobi karo bas okay soo dhawow magacaaga waa dhaw walaal Shiina Maxamed Baleerada Shiina Maxamed waxaan wadnay barnaamij xog ururina oo bulshada magaalada Gaalkacyo weydiinaynay doorashooyinka Soomaaliya ka jira ma la socotaa wala socdaa waxaan barnaamij xog ururina yaan wadnay ifan adigoo adigoo xildhibaana oo kamid ah xildhibaanada federaalka Soomaaliya la dooranayo wareegga ugu dambeeyay waxa isku soo haray Saciid Cabdullaahi Deni iyo Maxamed Cabdullaahi Farmaajo keebaa markaa codkaaga siin lahayd waxaan siin lahaa madaxweynaha Maxamed Cabdullaahi Farmaajo Farmaajo siin lahaa ma jiraa sabab aad Farmaajo ku dooratay Saciid Cabdullaahi Deni aad ku leelinayso maya sababtaan madaxweynaha dawladda madaxweynaha waxaan ku dooran lahaa Farmaajo waxyaalo badan oo hadda uu qabtay baan ku dooran lahaa oo ay waxaa kamid ah nabadda waxaa kamid ah dhisitaanka ciidamada waxaa kamid ah musuqmaasuqa uu la dagaalamayo waxyaalo badan oo noocaas miral baan ku dooran lahaa waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh saaca soo dhaw magacaaga oo dhaw saaca magacaaga Safaan baan lahaa Safaan waxaan ku weydiinayaa su'aalan dadweynaha magaalada Gaalkacyo weydiinay xog ururin baan sameeynay ma la socotaa doorashooyinka Soomaaliya ka socda hadda aad iyo aad la socdaa haddii aad xildhibaan inta lagu soo doorto waxaan yiraahdo oo hadhow codka la lagu kala baxayaa Saciid Cabdullaahi Deni iyo Farmaajo kibaad u codeyn lahayd codkaaga siin lahayd aniyo ma haddii aniga xildhibaan ahaan lahaa codkaaga lahay waa lagu kala baxayaa codka lagu kala baxayo waxaan siin lahaa madaxweynaha Maxamed Cabdullaahi Farmaajo siin lahayd isaga siin lahaa waayo sabab aad ku siin lahayd waa ku dooratay maxay tahay sababta sabab ku doortay sababtu waxa weeye ninka waa nin waxa weeye xirfadii iyo mataqaanaa iyo waxqabadkii wax walba yaqaan weey laakiin Saciid Cabdullaahi Deni waa يعني دولة نوقف أنا وركز وعادي أفرماته لكن عايز عبد الله الدين ما بقى شو أم بلصة بحياة نكاس لو ما كرسونان كلا. السلام عليكم. عليكم السلام. شو دو صح مقعي؟ والله لو دو هاي مقعي وخضر عبد الرزاق حسن. خضر عبد الرزاق حسن وحكوا يدينا سؤال عند وينها ما قال كعب يدينا إني أو مرسوا على سياسة الصومالية حريقا ماشي أمريكا. سفيعا. حدي حلوان الغود ورته الله عد كذا لو كلا بحياة سعيد عبد الله الدين فرماج أو مشرح فدرالة كيف عد كذا يسين لاي. والله لهرتها هذا ما إيه لكن هدي بقى طبعا دعي الحين يعني عدكيجا وحي أمضى الصوماليات يو دلك يدين تدنوا بندوران لها تاسنا واسكعد هاي أمضى الصوماليات نبى كده حقوق حية نكون دني معهن ومدحوينها أمضى الصوماليات محمد عبد الله فرماجو دني ما بقى هذا كرب مسؤولية ده أنت على الأجيو إن صوماليا لودي أنا ما قبل marka waxaan leedahay codkayga waxaan siinayaa Maxamed Cabdullaahi Farmaajo danina mas'uuliyadda inta leeg ma qaadi karo wala la taas waqti badan ku bixin mayo anu codkayga iyo codka ummadda Soomaaliyeed waxaan dhihi lahaa madaxweynaha Soomaaliya siiya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo Saciid Cabdullaahi Denina mid baan leeyahay Saciidow Puntland baa waxay kaaga baahan tahay inaad wax ka qabatid shilinkeedii baad riday boosaasaad wixii loo kayta ka dhaceen iyadoo lagu leeyahay ka joog markaad soo daashay baad soo hadashay garow korkeeda xabad baa ka dhacay soo shacabkii baa isku haysta annagu haddaan reer mudug nahay 4-5 sano hadda ninkaanu joogay Gaalkacyana waa nabad Soomaaliya oo dhan nabad buu rabaa inuu gaarsiiyo ninka halka joogo oo aad Cabdiraxmaan Cabdishakuur iyo nimanka halka jooga aad u soo raacaysid oo aad leedahay amniga qaranka lagu wareejiyo adiguna la mid baa tahay iyaguna waa ka daray marka qaranka iyo dalkan badbaadadiisa waxay ku xiran tahay madaxweynaha Soomaaliya nin walba oo aqal lana uu garanayaa Maxamed Cabdullaahi Farmaajo kuraasti 16 bari taale madaxweyne hadii hadda am culeys ka soo fuulay ama aad weyday waxaanu ka codsanaynaa kuraasta kale aad aruurisid inaad madaxweynaha Soomaaliya ugu dartid lana shaqeysid. Assalaamu alaykum. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi. Soo magacaygu istaxan waa Faarax Cabdi Aadan ahna gudoomiyaha bajaajleyda Gaalkacyo. Faarax Cabdi Aadan oo soo dhawow
faarax cabdi aadan oo soo dhawow waxaan ku weydiinayaa su'aalaan dadweynaha magaalada gaalkacyo weydiinaynay haddii xildhibaan lagu doorto oo xilligan doorashada Soomaaliya kala guurka xildhibaan lagu doorto Sicid Abdullaahi Deni iyo Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo Sicid Abdullaahi Deni codka kebaad siin lahayd haddii codkaaga kula guuleysanayaan reedaniyo horta ninka Deni leeyahay anoo iskale cod ugu shumaye laakiin Farmaajo taba boqor Ilaahay Farmaajo codkaaga siin lahayd dhaca Farmaajo Deni maxaa sagalay macnaheedu waa ninka qallaasan nagu dhigay waa arkaysa boosaas wixii ka dhaca ma garata maxay tahay marka sababta aad Sicid Denina ku diiday Farmaajona ugu codaysay hadda sadar mo su'aalka dhan de laba nin oo maxay ahayd magaalada Ilaahay de aqoon u kala siiyay weey Denina waxaan leeyahay xil kuma fiicna xilkana uu hadda hayo Puntland iska dhiibo federaalkan iska daayo Farmaajo noolaado assalaamu calaykum salaam rahmaan soo dhawaada magacaaga waa dhawaay magacaaga Najmo leeyahay ya Najmo waxaan ku weydiinayaa su'aalaan dadweynaha magaalada gaalkacyo weydiinay mala socotaa siyaasadda Soomaaliya meesha hadda maraysa haa waa la socdaa haddii xildhibaan lagu doorto codkaagana dhaawaa lagu kala baxayaa Sicid Abdullaahi Deni iyo Farmaajo kebaa u codayn lahayd labada farood miyay siman yihiin waa saas oo kale Farmaajo u codayn lahaa labada farood ma sinne marka waxay leedahay Sicid Abdullaahi Deni si labada farood sinne bay de waa madaxweyne iyo madaxweyne maamul goboleed iyo madaxweyne waxa weey dal mar walbana Farmaajo taageersanaa laakiin waa laba madaxweyne midna maamul goboleed haysta midna Soomaaliya haysto laakiin markaan Soomaaliya ku tartamayaan Soomaaliya u tartamayaan mid walba madaxweyne miyaa xaqabadkiisa waa arkay ani caqli ahaan Farmaajo taageersanahay magacayga Cabdullaahi Cali baa la yiraahdaa Cabdullaahi Cali waxaan ku weydiinayaa su'aalaan dadweynaha magaalada gaalkacyo wareysanaya aan weydiinay mala socotaa siyaasadda hadda hadda siyaasadda dhul badan bay maraysaa waxaan ku weydiinayaa haddii xildhibaan lagu doorto Sicid Abdullaahi Deni iyo Farmaajo kebaa codkaaga siin lahayd codka anigu Farmaajo cid ku dari maayo Farmaajo siin lahayd ku dari maayo bacid Farmaajo siin lahaa maxay tahay kaali dhamayso maxay tahay sabab ma jirto sababtu maxay tahay Sicid Abdullaahi Soomaaliyeed baa ka muuqda Soomaalida ka muuqata runa okay Ibrahim waxaan ku weydiinayaa dadweynaha magaalada gaalkacyo su'aalaan weydiinaynay haddii xildhibaan lagu doorto Sicid Abdullaahi Deni iyo Farmaajo kebaa codkaaga siin lahayd walaalahay anigu codkayga waxaan siin lahaa mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waxa weeye ninkaas anigu codkayga siin lahaa haddii xildhibaan la ii doorto maxay tahay sababta aad Sicid Abdullaahi Deni ku diiday Farmaajona codkaaga ku siisay waxa weeye waxay tahay Sicid Abdullaahi Deni dadka Soomaaliyeed iyo Soomaali weynba iyo gaar ahaan reer Puntlandba cagta hoosteedu galiyay waxa weeye Maxamed Cabdullaahi Farmaajo Soomaali weyn oo dhanba kor buu u qaaday marka saas codkaaga ku siin lahaa saas codkayga kor siin lahaa waana Soomaali xaq weeye Saama Cabdiraxmaan Xasan waxaan ku weydiinayaa nin dhalinyaro ah tahay siyaasadda ma la socotaa haddii xildhibaan reerkiina ku doorto aad xildhibaan noqotid markaas waxaan leeyahay Sicid Abdullaahi Deni iyo Farmaajo kebaa codkaaga siin lahaa laba nin oo isku dhow ma Farmaajo wuxuu qabtay waa caddaay Siciidna wuxuu qabtay waa caddaay marka laba nin har iyo habeen bay kala yihiin oo maxay toode Farmaajo meel colaad ka jirto nabad ka dhigay maxay toode Siciidna waa asaga bari ku kiciyay colaadda marka laba nin isku ma dhow marka Farmaajo aan codkaysiin lahaa Farmaajo codkaaga saaxiib soo dhawaada magacaaga waa dhawaad Cabdullaahi baa dhaawlaan Cabdi Cabdullaahi waxaan ku weydiinayaa su'aalaan dadweynaha magaalada gaalkacyo weydiinaynay haddii xildhibaan lagu doorto codkaagana dhaawaa lagu kala baxayaa Sicid Abdullaahi Deni iyo Farmaajo kebaa siin lahayd walaal wax weeye laba nin oo isu dhow maaha waxaan siin lahaa codkayga Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waa nin wadaniya waa nin macayte dalka dadka u roon weeyaan assalaamu calaykum salaam waraxmatullaah soo dhawow Sacid aad iyo aad baan u dhawahay magacaaga Maxamed Sheekh Cabdi waxaan ku weydiinayaa su'aalaan dadweynaha magaalada gaalkacyo weydiinaynay ma la socotaa doorashooyinka Soomaaliya ka socda aad iyo aad waxaan ku weydiinayaa adigoo xildhibaan oo codkaaga lagu kala baxayo Sicid Abdullaahi Deni iyo Farmaajo kebaa codkaaga siin lahayd aad iyo aad su'aal weyn weeye oo aad iyo aad ugu faraxsanahay waxaan joogaa magaalada gaalkacyo ninka la yidhaaho madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo aqlabiyadda magaalada gaalkacyo aad iyo aad baa loo taageersay isagaana madaxweynaha isagaana taageersanay inuu soo baxna waa rajayn oo soo noqdo aad iyo aad baan ugu rajaweynahay isagaa taageeraysa aad iyo aad baan u taageeray inuu soo noqdona waa ku rajaweynahay 8 sano xukumo kale waxaan ku weydiinayaa maxay tahay sababta aad ku dooratay Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo Sicid Denina ku diiday waxaan ku doortay magaaladan jooga gaalkacyo ayaana nabad xataa ahaan jirin intuu joogay ayay xataa magaalada nabad ka dhacday oo gaalkacyo ma Deni oo madaxweyne kaamis Farmaajo madaxweynaha qaranka ee saxda ah waa Farmaajo weeyaan assalaamu calaykum salaam waraxma soo dhawow mudane magacaaga waa Hanad Maxamed Ismaaciil waan ku dhawahay
maxamed maxamed ismaaciil waxaan ku weydiinayaa su-aalaan dadweynaha magaalada gaalkacyo weydiinaynay haddii xildhibaan lagu doorto oo codkaaga la waa lagu kala baxayaa siciid cabdulaahi deni iyo farmaajo kawaad siin lahayd codkaaga horta niyow waa hadal wanaagsan dee haddii xildhibaan lay dooran lahaa maanta codkay waxaan siin lahaa maxamed cabdulaahi farmaajo waa madaxweynihii dalka soomaaliyeed dhallinyar iyo oday iyo xildhibaan kolley dee waa loo kala madaxsan yahay leeyaco asaga marka maxamed cabdulaahi farmaajo madaxweynaha federaalka siin lahayd السلام عليكم. وعليكم السلام. سودو ساعة مقعد. وادو برنامج كدوه. مقعد. محمد أحمد عيسى. محمد أحمد عيسى waxaan ku weydiinayaa su'aal aan dadweynaha magaalada ka weydiinayay oo ah haddii xildhibaan lagu doorto codkaaga lagu kala baxay si Cabdullaahi Deni iyo Farmaajo kiba codkaaga siin lahayd. waxaan codkayga siin lahaa Farmaajo. Farmaajo siin lahayd. Xayta sababta si Cabdullaahi Deni ku diiday Farmaajo aad ku siisay. sababta ku siin lahaa Farmaajo waa nin wadaniya waa nin aan macnaha oo wadanka wax u qabtay waa nin aan macnaha oo wadanka aan inuu ka shaqeysto aan u imaanay inuu ummadda Soomaaliyeed wax u qabto u yimid. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سودو ساعة مقعد. أوكي والله الودوة هي مقعد عبد الله عبد القادر محمد. عبد الله عبد القادر محمد waxaan ku weydiinayaa su'aal aan dadweynaha magaalada ka weydiinayay oo xog arurna ma la socota doorashooyinka Soomaaliya ka jira. أوكي si weyn baa la socdaayo oo ku dhex jira siyaasadda arrimaha aad iyo aad. Okay aad baa fiican waxaan ku weydiinayaa haddii xildhibaan lagu doorto oo reerkiin xildhibaan ku soo doortaan oo codkaada lagu kala baxaya si Cabdullaahi Deni iyo Farmaajo kala baxaya ka wasiin lahayd. si wanaagsan walaal macaan codkii waxaan u shubay Farmaajo. Cabdullaahi Farmaajo u shubay. waxay tahay sababta ugu shubtay oo siciidina ku diiday. sababta u doortay walaal waxa weeye waa nin wanaagsan oo wadanka wax u qabanaya oo wadanka horumar gaarsiin kara weeye oo himad iyo hagarlaan wadanka wax u qabanaya. Assalaamu calaykum. Waalaikum salaam. soo dhaw saaxiib magacaaga. waa dhaway magacayga waa Ibrahim Macalin Maxamed. إبراهيم معلم محمد waxaan ku weydiinayaa su'aal aad u fudud oo dadweynaha magaalada Gaalkacyo weydiinayay ma la socotaa siyaasadda hadda Soomaaliya meesha marayso aad iyo aad waa la socdaa waxaan ku weydiinayaa haddii xildhibaan lagu soo doorto oo la codkaada lagu kala baxaya Siciid Cabdullaahi Deni iyo Farmaajo madaxweynayaal u tartamaya kebaad codkaaga siin lahayd codku waxaan siin lahaa haddaan leega dhigo xildhibaan oo codka lii weydiiyo maxamed Cabdullaahi Farmaajo codka siin lahaa codka waxaan siin lahaa maxamed Cabdullaahi Farmaajo maxay tahay sababta si Cabdullaahi Deni ku diiday oo Farmaajo codka u siisay macnaha fikirkaaga inkastoo anigu siyaasi aan ahayn Soomaalida codkooda waxa u badan yahay Farmaajo Soomaalida wax badan baa u qabtay baa u badan yahay waxa tahay Soomaalida fikirkooda raacday mise Farmaajo waxa jira waxyaalo aad ku jeclaatay waxyaalo badan aan ku jeclaaday baa jira Soomaalida midnimo ka dhigay Soomaalida midnimo ka dhigay okay aad baa